munaasabadan oo ahayd madal lagu shaacinayay musharaxnimada Maxamed Cabdilaahi Jawaan oo ah musharax u taagan isla markaana u tartamaya jagada xildhibaannimo ee golaha deegaanka caasimadda doorashada soo socota ayaa ahayd madal isugu jirta casho sharaf iyo shaacinta xildhibaankaasi. xafladan lagu qabtay hotel Asood oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota xisbiga UCID oo ah xisbiga uu musharaxani ka dhex tartami doono aqoon-yahano madax dhaqameed iyo haldoorka beesha musharaxani uu ka soo jeedo. ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay Chief Caaqil Maxamed Cali Cabdilaahi, Axmed Maxamed Cali, Amran Maxamed Ismaaciil oo ahayd xubin ka tirsan dadkii soo qabanqaabiyay xafladani, iyo sidoo kale Khadar Maxamed Maxamed iyo Sawda Sheekh Cabdilaahi. waxaan soo dhaweynaynaa musharaxeena maxamed Cabdilaahi insha Allah xafladuna way noo furan tahay. iniga waa nin daadayar wana aqoon-yahana wana aad iyo aad garanaysaa aad u soo xulay kollayba xaflada kalena way ka dambeyn doonaan tan tii ugu horeysay ma aha waxaweyaan dadka ka soo qayb galay ilaa xisbiga iyo waxaan kori dumarka iyo ragga iyo cuqaasha aad iyo aad baan ugu mahadinayaa xafladan laga soo ajiibteen waxaweyaan hadalkayga waxaan kusoo koobayaa deena la soo dhaweeya. waxaynu caawa halkan ku shaacinaynaa musharaxa beesha Yaasir Weyne ee golaha deegaanka musharax Maxamed Cabdilaahi Axmed Jawaan. musharaxu kulli waa nin daayar, waa nin aqoon-yahana, waa nin injineera, waa nin xilka oo isu sharaxay golaha deegaanka aqoon badan u leh. maxamed waa aqoon-yahan, waa nin sharaf leh, waa nin karaamo leh, waa nin aanu ka soo shaqaynay waad arkayseen aaqiladayadii iyo uqaashayadii sida ay u joogeen iyo meesha milgada ay leedahay. maasha Allah halkan waxaan ka salaamayaa oo ku soo dhaweynayaa Maxamed Cabdilaahi Axmed. dhankiisa isaguna halkaas waxaa ka hadlay xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka UCID Yuusuf Kayse oo soo dhaweeyay musharaxan. aad iyo aad baa mahadsantihiin inaa markaa tashateen aad tiraahdeen waar halkaynu geynaa markaa ninkii soo saarteen isla markaana garateen inaa UCID keentaan aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin. mar haddaa soo gaarsiisaan xisbigii insha Allah procedure-kii xisbigu mari doonaa. intaas kadibna halkaas waxaa ka hadlay xogayaha arrimaha diinta iyo awqaafta xisbiga UCID Ibrahim Cabdi Xuseen oo isagu laftigiisu ah musharax u taagan jagada xildhibaannimo ee golaha wakiilada doorashada soo socota. waxaanu musharax xoghaye Ibrahim ku dheeraaday ahmiyadda ay leedahay in la doorto musharax Maxamed Cabdilaahi isagoo ka warramay asbaabaha ay reerku ku soo doorteen. halkan waxaan u fadhinaa maanta waxa weeye shaacinta musharaxa golaha deegaanka Injineer Maxamed Cabdilaahi. anigoo ku hadlaya afka xisbiga xogayihii fulinta uu jiray laakiin gudoomiyihii xisbigu waa naga maqan yahay oo safar buu baxay laakiin wuu noo wakiishay arrintaasi. maxaan ku dhahaa musharaxa waanu soo dhaweynaynaa waananu aqbalay nidaamka xisaab xisbigana uu mari doonaa insha Allah tacaala. halka fariintan xisbiyada u darinaya halka maanta u marinaya waxa weeye dad badan baa kolley la soo sharaxaa haba ahaatee ama dariiqada la soo maraya waa 3 xisbi qofku meel cidla iskama sharixi karo. 3 xisbi waxaan fariinta labada xisbiye kale u marinaya anagu waan sugnaaye war dad la hubo oo maxaan ku dhahdaa aamina oo kartile ugu dambeyntiina halkaas waxaa ka hadlay musharaxa shaacintiisa loo fadhiyey madashani oo ah musharax Maxamed Cabdilaahi Axmed Jawaan oo ballan qaaday haddii xilkaasi alla ku guuleeyo inuu dalka iyo dadkaba wax u qaban doono. waxaanu sidoo kale uga mahad celiyey beeshiisu sida ay isugu raaceen in isaga ay u soo doortaan inuu matalo jagadaasi, isagoo uga mahad celiyey xisbiga UCID maadaama ay aqbaleen islamarkaana uu yahay musharax ka dhex tartami doona xisbigaasi UCID. waxaanu yidhi ma aanaan ahayn dad ka maqan xisbiga ilaa iyo aas-aaskiisii dad ku jiray oo ku soo baxay oo ku caanamaaray ayaanu nahay. kadib kolkaanu dhan walba ka eegnay waxaanu garanay inaanaan xisbigayagii ka tegin cadowgana aanaan u jebin oo aanu adkayno xisbigayagii. taasi waa ta xisbiguna si wanaagsan buu noo qaabilay aad iyo aad buu mahadsan. ta kale anigu waxaan ahay Maxamed Cabdilaahi Axmed oo waad garanaysaan dhammaantiinba. waxaan ahay nin injineera, maan soo doonanin xoolo dadweyne inaan ku helo masabkan, laakiin waxaan soo doontay
inaan reerkayaga la geynin qof aan macquul ahayn ayaa igu kaliftay kursigan aniga sidaasaan kaga aqbalay inaan musharax noqdo ee anigu musharaxnimada nin ku degdegsan maan ahayn waxaan ku idhi reerkayaga haddii aad haysaan qof ifuran kara keena maqraati bay ka yihiin laakiin iyagaa ii gartay inaan masabkaa u qabto reerkayaga waxaan ka codsanayaa dibad iyo gudo iyo miyi iyo magaalaba intaba inay soo saaraan si aan dadweynaha wax ugu qabtiyo iyagaba cabdiqaadir coday Hon Cable TV Hargeysa